waxaan masaajid in sheekhu darsi ka akhrinayo maka ka dhigaysay qisadu waxay leedahay gabar ahlu diin ah ayaa waxa jeclaaday canug ciyaal suuq horeer maka gabadhii uu doonay waxay tiri ciyaal suuq ma guursado aniga ma ku doonayo markaas wuxuu yiri ulama noqonayo hayo noqo qamiis gaaban intuu soo iibsaday oo garkii deystay uu safkii hore caday la istaagay ma ba ka tagayo masaajidka muddo kadib gabadhii waxa lagu yiri ninkii wadaadu noqday mudawwic ay dhahan ayaga mudawwic uu noqday ninkii dasaas haday tahay guursanaya hayaba waa is guursadeen bil markuu la joogay oo ciyaal suuqnimadii ku laabtay markaas waxay tiri aawo wadaadnimadii ma waxa su'aal ka soo tagay waa la hadashay barigii dambe uu soo kaxeeyay gurigeedii uu keenay gurigeedii markay gashay warqad u dhiibtay warqadii banaanka markuu la tagay oo akhriyay waxay leedahay mar dambe ha ii iman taasay warqad ugu qortay mar dambe ha ii iman waxa ku yaala jiddo xaafad karantiino la yiraahdo waxa dega dadka Afrikaanka ah waxa aad u dhaxyaala sixir marka iyaga dhaxdooda ayaa wax isku sameeysta ummadda kale wax kama hayso xaafaday u gaar yihiin way ninkii wuxuu yiri salaantii oo iga tagtay maxaan sameeyay wax karantiino tagay karantiino tagay hodayuu tago wuxuu yiri haweeneyda iga tagtay ma soo ali karta ana soo celina lacag buu ka qaaday wuxuu yiri ana si degdeg guriga ku celinayo usbuuc iga warso usbuuc kadib wala hadlo wuxuu yiri hay hawshii ka waran guriga ka fiiriyo guriga uu tagay wax jooga ma waa soo laabtay wuxuu yiri guriga wax jooga ma wuxuu yiri wax awood u mali anigu intaas ka badan maxaa igu la talinaysaa markaas wuxuu yiri aniga sixirkayga heerkaas ma gaarin laakiin hadda rabto hindiya yaa ii sheegaysaa hindiya hebel hindiya jooga u tago hindiyo diyaarad u raacay nimo u tagay wuxuu yiri haweenaa iga tagtay lacag intaas la keenay yiri ana soo celinayo lacagtii uu bixiyay imisa qaadanaysa usbuucan qaadanaya usbuuc kadib wuxuu yiri telefoon dir guriga in la joogo telefoon u diray waxba ma joogan guriga bes uu wax kale ma qaban karo hay marka maxaan sameeyay markaas in muftiga sixirka ah shaydaanku weyn sixirka waa hagu jooga meel hebel jooga ninkii u tagay arintaas aan rabaa weey lacagihii laga qaadi jiray show lacag aad uga badan iyo ka dalbay lacag intaas la keen buu lacagtii buu ka qaaday usbuuc iyo warsi usbuuc markii dhamaatay buu u tagay ninkii waa xanaaqsan yahay war maxaa jira war naga tag buu yiri ciidankii waa naga laysay ayaa suuq baata ciidankiina waa dhamaysay oo maxaa jira 100,000 ciidan gaar ahaan garu yiri wax ka soo noqdana ma laha ومحا ku dhacay guriga gabadho ay joogto suuratul baqara lagu akhriyaa ciidankaygii oo dhan gamba laga dhigo khasaaradna ay soo geysay khasaaradii geysatay taas ku yiri marka quraan akhriisayna ku sii ordin haweenku ee guriyooda suuratul baqara intay bartaan ha ku akhristaan bas quraan akhrisan tagay waa la suuxiyay lugaha la iga xiray sanka waxa la ii saaray wax baahiyo lama qabo bas quraanka ha barteen suuratul baqara ha barteen hana soo akhriyeen iyagu guriyahoodana ha ku akhriyeen hana ka saareen asbaabaha shayaadiinta soo jiida hada rabbil tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi